sanad walba waxaa la soo saaraa awoodaha dalalka caalamka taasi oo inta badan uu ka faallooda wargeyska loo yaqaan Global Firepower sanadka 2021 ayaa waxa uu soo saaray liis uu ku xusay sida ay wadamada u kala awood badan yihiin si gaar ahna qaaradda Afrika ayaa waxa uu ka soo xushay 35 dal haddaba xagee ayaan kaga jirnaa 35 dal sida badanaaba ay hore u ahaan jirtay Soomaaliya ma ahan dalka ugu hooseeya liisagan inkastoo aysan ka muuqan kaalmaha ugu wanaagsan Masar ayaa ah wadanka military ahaan ugu awood badan qaaradda Afrika waxaana ku xiga dalka Algeria iyo Koonfur Afrika dalalka Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia iyo Sudan ayaa sida isugu xiga oo buuxinaya 10 wadan ee ugu militariga fiican qaaraddan madow ee Afrika inkastoo ay jiraan dalal ay awoodda militariga aad isugu dhow yihiin farqi sida ugu weyn uusan u dhaxayn sida Sierra Leone, Gabon iyo Afrikada dhexe haddana wadanka ku yaala cirifka ugu dambeeya ee geeska Afrika ee Soomaaliya ayaa ku jirta kaalinta 34aad ee kala sareynta liiskan Soomaaliya ayaa military ahaan dhinac walba uga awood badan wadanka Liberia oo ku jira kaalinta ugu dambeysa ee 35aad hase yeeshee waxaa xusid mudan in la sheegay 35 wadan oo kaliya halka dalalka Afrika ay ka badan yihiin 50 wadan taasi oo micnaheedu yahay in dalalka aan liiskan lagu soo dirin aysan military ahaan u dhisnayn halkaasna waxaa ka cad in Soomaaliya iyo Liberia ay ka wada awood badan yihiin dalalka kale ee Afrika ee aan liiskan xogtooda lagu sheegin Masar, Algeria, Koonfur Afrika, Nigeria, Morocco, Ethiopia, Angola, Libya, Tunisia, Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Zambia, Uganda, Chad, Zimbabwe, Ghana, Niger, Mali, Botswana, Cameroon, Suudaanta Koonfureed, Tanzania, Ivory Coast, Mozambique, Jamhuuriyadda Congo, Madagascar, Mauritania, Namibia, Burkina Faso, Afrikada Dhexe, Gabon, Sierra Leone, Soomaaliya iyo Liberia. Soomaaliya waxa ay kaalinta 136aad ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha military ee wadamada oo ka kooban 138 dal. Sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Fire, tirada shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku qiyaasay 11,258,029 qof. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxaa lagu qiyaasay 2,702,267 qof oo u dhigma 24% oo ka mid ah guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 1,622,300 qof ayaa awood buuxda u leh in ay ka mid noqdaan ciidanka sanad kasta tirada dadka ay da'dooda ka sareyso heer ay ciidanku ku biiraan ayaa waxaa lagu qiyaasay 122,598 qof tirada ciidanka xoogga dalka ee hadda shaqeeya ayaa waxaa lagu qiyaasay 20,000 oo askari sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower ma jiro ciidan kayd ah oo militariga Soomaaliya u diiwaangelsan Soomaaliya xilligani ma lahan awood dhinaca ciidanka cirka ah sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha military ee wadamada caalamka taasi waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarado toona Soomaaliya waxa ay leedahay 10 taangi 100 gawaarida gaashaaman ah Soomaaliya ma lahan madaafiicda iskood isu haga 30 madaafiicda la jiida ah 10 qalabka lagu rakibo gantaalada ah hantida guud ee ciidanka badda ee Soomaaliya guud ahaan waxa lagu sheegay 3 qaybood 11 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha ee joogtada ah Soomaaliya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka kuwa biyaha hoostooda maqurta iyo kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo waliba maraakiibta miilooyinka baara ma jirto saliid laga soo saaro Soomaaliya saliidda la isticmaala waa 6,200 BBL ma jirto saliid kayd ah oo la xaqiijiyay miisaaniyada loo qoondeeyay howlaha gaashaaniga ama difaaca dalka Soomaaliya waa 62 milyan 200 kun oo dollarka Mareykanka ah deynta dibadda waa 5 bilyan 300 milyan baaxadda dhulka ee laba jibaarana waa 637,657 kilomitir dhulka xeebta ku teesan waa 3,025 kilomitir oo square ah xuduudda ay wadamada kale la wadaagtaana waa 2,385 kilomitir Soomaaliya ma lahan marbiyood la isticmaali karo haddaba daawada suurtagal ma tahay in sanadaha soo socda aan gaari doono meel aad u sareysa